maxaan ku dhahdaa bishii dabaaldegii 18 May waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo go'aamiyay in 18 May dabaaldegeedii iyo buqaanbuqii aynu sanad walba samayn jirnay 25 sanadood la soo dhaafay inaanu sanadkan sidii u dhicin in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hadday tuulo tahay lacagtii lagu dabaaldegi jiray in loo bedelo gurmad abaaraha ah waxaa kaloo la go'aamiyey hadday tuulo tahay iyo hadday degmo tahay iyo hadday gobol tahay iyo hadday caasimadda tahay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hadday qurba joogga tahay meel kasta ay joogaan inay sanadkan kuntiga dhiisha iskaga dhigaan oo ay si adag ay uga fikiraan sida aynu gurmadka abaaraha uga qayb qaadanayno oo wax kasta oo dabaaldegaasa aynu u bedelno qaadaan ururin aynu dadkeena abaaruhu ka maxaan ku dhahdaa soo barakacay ee ay abaaruhu saameeyeen aynu maxaan ku dhahdaa ay la wadaagno dad badan baa jira oo xoolihii ka baxeen hadday xoolo iibis tahay waaynu dadka dib u xoolaynayno iyo hadday tahay sidii loo daryeeli lahaa intaba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo wuxuu go'aamiyay oo goostay isagoo dawladdiisana ku amraya shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegaya ilaa maalintii dalkan la soo galay aynu xorriyaddeena dib ugu soo qaadanay inaynu nahay ummad isku tashatay isku tashigaas aynu isku tashanaynay ayuun bay tan ka mid tahay oo aynu dadkeena ay abaaruhu saameeyeen aynu la gurmanayna markaas haddii xaflada tahay xafladaas waxaa loo bedelayaa qaadaan ururis maxaan ku dhahdaa ummadda lagu taageerayo wixii dawladdu ay ku qaban jirtay qaadaanka xafladaha iyo nidaamyada noocaasna iyo ciidamadii iyo hawlahaas iyo hawshaasna waxaa loo bedelayaa iyadana qaadaan ururis waxaa kaloo aan jecelahay